markasta markay wax dhacayaan oo crime dhacayo dhacdooyin dhacayso xaafadda tuug soo galay qof la dilay waxaas markay dhacayaan guri la dhacay cunug dhumay markas dadku waxay ka fikiraan bannaanka laakiin crimeka markaas u fiirsatid qof ku yaqaano qof dariskaaga ah qof maxaa la dhahaa oo guriga kula degan qofkaasoo kalentad oo xogtaada haayo aa dhibaatadaada daqiiqad kuu gaarsiin karo tuugga bannaanka jaago wuxuu arki karaa cunug meel yaaluu dafi karaa amba lacag meel taaluu dafi karaa amba inuu kusoo dhaco waxaas ka qaadan karaa laakiin si gooni ah qofkii raba inuu wax kaaga qaato qofkaas waa qof ku yaqaano amba qof ku yaqaano laguu soo dirsado waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu seetiin saaxiibadeen ma ii fiican tihiin maanta iyo qiso kale oo cajiib laha idin wadaa dhinacaasi Ameerika dhacday intaanan qisadeena bilaabin sida caadada ahayd waxaan iiga codsanayaa si walaaltinimo iiga codsanayaa inaad subscribe-ka ii saartaan idinku aad iyo aad u mahadsan haddaa hore noola joogtane jazaakallaahu khayr qisadeena kusii socdayna marka qisadan waxay ka dhacday Ameerika meel la yiraahdo New Jersey familkan waxay ka kooban yihiin hooyo aabbo iyo 3 caruur aabbaha waxaa la yiraahdaa Petro hooyadana waxaa la dhahaa Louise 3 cunug ay dhaleen 2 cunug oo weli aan 10 ka gaarin oo yaryar 10 sano aanan gaarin oo yaryar oo iskuul gaarin iyo baby hadda la dhalay oo umul loogula jiro aabbaha wuxuu leeyahay shaqadiisa waxaa waaye garaashka xaafadda waaye gurigiisa albaabkiisa garaasha ugu yaallo baabuurtuu sameeyaa hooyadana guri joogta waaye raashin reerka u karinaysa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo raashin karinayso aabbihiina barnaamij ku mashquulsan yahay gaariyada samaynayo gurigii baa dab qabsaday gurigii dhinac kastoo dab kasoo qabsaday way naxday hooyada gudaha ida ku jirto 2 cunug agagaarkeeda joogeen aruurisay waxay tiri ka baxa banaankii u saartay aabbo u taga ka baxa banaanka guriga ka baxa daba qabsaday baxa way bixisay way carartay koray kortay qolka jiif koro ahaa beebigii umush ay ugu jirtay oo sariirta saarnaa bay u tagtay inay kasoo qabato meeshii dabkii dhinac kastoo ka socdaa wuu isqabsaday si xun isku qabsaday marka way carartay saas iyadoo dabkii soo jaranjaradii boobsiisay koray tagtay sariirtii reed oo cunug ku jiray bay saa u fiirsay cunugba meesha ma joogo beebida gabadhii yareed oo hadda ay dhashay umush kula jirtay maba ku jirtaba qofka ma socon karo waryaha ka bixiye intay ku ordaa dab sariirta wax u saaran ma leh adiga iyadoo naxsan oo meel kasta ay kasoo weysay dabkiina issii wada qabsaday nafteeda ku jirta riski waxay samaysay way soo degtay jaranjaraday kasoo degtay iyadoo dabka korkeeda kusii wada daadanayo albaabka markay soo baxdaa ninkeeda wuxuu yidhi aabay gabadhii yareed beebidii aaw markaas waxay tiri maleh sariirta waan ka waayay dhulka waan ka waayay meel kasta waan ka waayay dabkan wuu isqabsaday adiga maa soo saartay maba soo karno yidhane intee ka baxday gabarta calaa iiti xaal xaafadda intay iska daba buuqaayeen ay socdeen waxaa loo wacay kuwa dabka damiyo baawar dabdamiskii imaatay gurigiyaa biyo lagu furay iyaga waxaa ka dheeraado meeshaan naf kumaba jiri kartaba hadduu beebi ku jirto xataa waad ka sabraysiin ka dhaqaada idinka naftii riskaa gelinaha ayagiyaa la gees loo bixiyey meeshiyaa la xiray dabkiyaa la damiyey dabka marka la damiyey ayadoo oynayso oo cabaadayso ee rafanayso iyadii ninkeeda iyo 2 cunug ambulaskaa la saaray waxaa la dhahay meel seef ha la geeyo isbitaalkaa la geeyey dabaa korkeeda ka gaaray reer kalena waa la waday seef ha la geeyaa la dhahay ada dabkaa la damiyey wax kastaa la fiiriyey lafa cunug walaa lafa dad meesha lagamaba arkin waa la waayay saas xaalad idoo marayso baa naagtii loo sheegay arrinta saas waa la yiri meelkaada la sii dejiyey noloshooda iska wateen murugtoodii maxaa la dhahaa ay ku noolaadeen adi 6 sana kasoo wareegtay 6 sano kadib reerkii oo hore u socday oo noloshooda dabirtay oo ciyaalka u koray oo iska iloobayba dhibaatadoodii baa maalin waxaa laga wacay ciid miilaad baardhi baartiyaa laga wacay caruurta ah meesha markay tagtay ayagoo joogaan isheeda waxay qabatay gabar ayadoo kale u eg ilmaheedana u eg meelahan dhimbilo ka leheyd gabadha hataa ka leh waxay tiri gabadheedu way iga dhimataa la dhuhaya laakiin lafeeda lama helin qofkaaneetadne caruurteedii anay ii eg tahay gabadhii u yartay kaanay tiri markay u timid ee la qoqosashay waxay tiri madaxa wax kaaga dhigan yihiin xanjaday soo baxsata afkeeda ku jirtay dhab madaxa ugu siisay waxay tiri xanjaa kaaga dhigtay jafay ka siisay sorry ee tiri xanjadan waa kaa fujiyey xanjada timaha ku jirtay timahee rabta inay ka goyso si ay u soo baarto waa baxday waxay tagtay baaritaankii raasatay horta waxay hubsatay gabadhan
iyo tahay intay degan yihiin dadkay gooni u wareysatay way ogaatay markay ogaatay baaritaanay raadisay markay soo baartay loo sheegay gabadhan DNA-gan timaha laga soo qaaday iyo eeyadii ninkeedii carruurteeda inay same DNA ay wada yihiin marka loo sheegay adreeskii iyo wixii dhan waa haysaa soo maahan booliiskaa loo sheegay waa la dabagalay waa la soo qabtay ayadii ninkeeda iyo cunugaa la soo qabtay naagtii waxaa la yidhi warkaan waa kugu cadyahay waa lagu hayaa adiga cunugan ma dhalin reerkan oo guriga laga gubay baa cunugan dhaleen maalintaasna la waayey warkaan waa kugu cadyahay ee sidaa actionka u qabatay uun noo sheeg alaa ii taxal naagtan waxay ahayd naag ilmo inay dhasho ka go-need dhali weyse sanooyin badan dariskeeda sanad kasta waxay tirahdaa uur baan leeyahay uurna ma laha haddana wuu soo dhacee leedahay haddana sanad dambe uuraan leeyahay wuu soo dhacay waa naag adduunkaba ku nool inay cunug dhashay rabto mar kastana dad waxay u sheegtaa inay uur leedahay oo haddana soo dhacay iyo macaninkeeda u sheegtaa marka iyadoo uur ee leedahay ee dadku usoo sheekaysay ee reerka garaashka aqoon koraad ee u leedahay bay maxaa la dhahaa gurigooda timid waa loo soo tilmaamay garaashkan waa fiican yaha la dhahay gaarigaa ka hadlaysnaay garaashkay keensatay markay keensatay garaashkii gaarigii intii loo sameynayey kitchenkia hoos ku yaalo kitchenkaas fariisaa la dhahay shaaxa la siiyey meeshaas ka fariistay iskaga cabaysaa marka maalintaas ee gaariga loo sameynayey bay ish waxay ku qabatay cunug yaroo haddal dhalay oo umul ah oo kursi yar ku dhex jiro meesha joogo adiga gurigeeda iyo magaalada baarkum lagu loo suubiyey waa baxday projecte maskaxdeed ka degsatay gurigeedii tagtay dadkii waxay u sheegaysaa inay ur leedahay waa dhowahay way dhowahay cunug baa dhal rabaa inta iga soo joogta caloosha waata waa soo dhacday alaa ii taxaal maalin dambena waxay u timid iyadoo cunug wadato cunugan dhalay soo tiri reerkii waaba laga aqbalabo intaas sanaaba ilmo laga sugaaya sidii nolosheeda u wadatay reerkaana meeshaanay kusii balbalayeen adduunyadooda shaqay ku leedahay male hala wada dhinto wixii raba ha dhaco aniga cunuga ma hele khalaas igtagneed ayada marka waa la soo xiray indhaha loo gaduudiyey way qiratay markii oo maxaa la dhahaa oo askartii iyo waxay dhan kusoo wada cadaadeen way qiratay maxaa la dhahaa inay saas baxyeeshay sheegtay cunugaasitod inay saas usoo dhacday sheegtay gurigaas ayad inay gubtay sheegtay naagtii maxkamadaa la saaray markii maxkamad la saaray oo lagu soo cadeeyey warkii cunugini waa laga qaaday reerkaana gabadhoodii yareed loo celiyey farxadooda farxaday u noqotay ayadane waxaa waaye gubitaan gurigay gubtay dadkii ay sigtay inay dhintaan ayagoo dhan cunugii ay xadday oo 6 sano ee dhibaatada reerkan ku haysay 30 sano gaar jiraa lagu cabe waa la xiray alaa ii taxal nasiib daradaasa ku dhacday maxaa la dhahaa reerkaanintadne 6 sano ee dhibaato ku noolaayeen arrintani meeshaas kusoo dhammaatay marka saaxiibayaal qisadeena maanta intaasay noogu ekeed allah subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa raxmadiisa waasice jannatul firdaws aclaa inuu nagu wada geeyo annaga iyo idinka waalidkiin iyo waalidiinteennaba iyo waalidiin muslimiin inuu ilaahay noo naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu